waxaan ku hayaa 6 siyaabood oo ah mid secret ah oo aadan ogeyn oo ku saabsan WhatsApp-ka. faa'iidana uu ku leeyahay, marka waan idin tusin doonaa 6 sirood. Okay, mid ugu horeyso aan idin tuso. 3 dhibic marka galo setting aad tago, waxaan fiirinaa marka account marka fiiriyo privacy aan riixayaa. waxaa halkan ugu jeedaan last seen meesha ku qoran tahay. last seen oo ujeedaan waa meesha marka aad qof la hadlaysid qoraal ama aad sheekaysanaysid, magaciisa hoostiisa waxa ku soo qoran online ama offline, ama waxa ku soo qoran saacad. last seen 4 saac iyo bar intaas camal oo PM waxaas camal. marka waxaa loo talgalay last seen qofka macnaha qof walba inuu arko xilliga oo kugu dambeysay WhatsApp-ka isticmaalkiisa. macnaha 5 saac ma kugu dambeysay, subax ma kugu dambeysay, galabtii, habeenkii, saacada xilligaas oo kaleete. marka waxaa ku qoran marka who can see my personal info la sugay information, macnaha kuma arki kara akhbaarteeda ama macnaha warbixinta aaneed. waxaa la wadaa last seen marka ku dhufato waxa ku soo baxay everyone. waxa waa qof walba arki karo macnaha xilliga ani ugu dambeysay video, macnaha xilliga ay ugu dambeysay khadka oo aan ka baxo macnaha. okay, my contacts waxa waa macnaha inta ani lambar ahaan ugu saf gareysan arki karo oo kaliya. nobody waxa la wadaa cidna ma arki karto, walaa qof banaanka jiro, walaa qof macnaha contact ku ah oo adiga macnaha xiriir aad leedahay mobilkaaga ku jiraan ma arki karaan. marka gaarid ay ka doorgataa nobody cid ku arkaysa malahan. okay, midda labaad waxay tahay marka profile photo ku saaran profile-ka. waa ujeedaan asigana waa sidoo kale profile-ka marka ku dhufato waxa ku soo baxay everyone, qof walba arki karo macnaha profile-ka oo sawir ku saaran. contacts waxa la wadaa marka waxa arki karo bis dadka adiga macnaha oo contacts ku ah. nobody waa qof ma arki karo macnaha labada dhinac cid arki karta malahan, oo ku dhufsan kartaa. okay, mid saddexaad aan gudubno marka. mid saddexaad waxay tahay status-kana ujeedo waa macnaha status-yada hadda soo oo macnaha dadka ay soo dhigtaan waa aragteen oo cashar aan ka bixiyay daraad sida loo soo degsado status-ka oo WhatsApp-ka. application badan ayaa jiraan oo lagu soo degsado. marka cashir ku saabsan waxaad ka daawan kartaan channel-ka. marka channel-ka dib u laabta. marka meeshaan fiiri waxa ku qoran who can see my status updates, macnaha yaa arki karo status-ka macnaha aan update gareeyay. waxa arki karo waxa ku qoran my contacts, dadka macnaha aniga isaf gareysan ama aan la xiriiro oo mobilkeyga macnaha oo mar walba ku jiraan. mid labaad waxa ku qoran my contacts, dadka macnaha aniga oo xiriirka ila leh ama contacts-ka ah. marka laga reebo except waxa waa marka laga reebo waxaad calaaminaysaa macnaha lambaro calaaminaysaa. waxaad dhigi kartaa marka laga reebo intaan qof ama 5 qof camal calaamaysa ama qof kaaritid calaamaysay 5 qof ay arki karto. marka laga reebo inta kale soo hartay oo kaleete aad dhigi kartaa baad calaaminaysaa. marka intaad calaamaysid waxa waa macnaha ma arki karaan. inta calaamaysid ma arki karaan update-ka macnaha waxyaalaha qaar ay soo update gareysay inta calaaminin ay ku arki karto. okay, ka gudub marka waxa ku soo marka only share with Allah. marka mid saddexaad waxa ku qoran only share with, macnaha u share garee oo kaliya. intaad calaamaysid aad macnaha u share gareynaysaa. marka u share gareysa calaamadan tigta aad ku dhufanaysaa. marka u share gareysmaya status-ka aad update gareysay. inta u share gareynin ma arki karaan status-ka. okay, mid afraad meesha ay ku qoran tahay read reception. waxa loo talgalay qofka macnaha markaad qoraal u dirto oo kaleete waxa saarmaya hal tig ama hal sax saarmaysa. marka qofka oo qoraalka u akhristo inuu akhristo waxa ku fahmaysaa 2 sax ama 2 tig ayaa saarmaysa. marka adiga inaad aragtay iyo inaadan arkin in la ogaano hadii aad rabto adigoo macnaha qoraalka aragtay inaan la ogaano inaad aragtay in kaleete waxa sameynaysaa read reception-kan aad jeeg saaraysaa. had jeeg uu saaran yahay macnaha qof walba arkaa jeega ka qaadaysaa. jeegka ka qaadid qoraalka hadii aad akhrisid xitaa qofka ma ogaanayo inaad macnaha akhrisay ama aad fiirisay, ma ogaanayo. 2 tig ma soo saarma halkaas tig ayuu saaraya bis.
okay mid shanaad inta soo marka mid shanaad waa group scan. Groups waxa la macnaha groupka yaa ku soo dari kar macnaha who can add me yaa ugu soo dari karo to groups macnaha groupyada kor waxa ku qoran everyone qof walba macnaha group uu soo dari karo qof walba group uu soo dari karo waa aragteen adoo iska filayna group loo soo dhaxgelinayo waxa leeyahay keen groupkan group nooca ah oo kaleete okay mid labaad waxa my contacts dadka macnaha ana xiriirka ila leh ayaa macnaha uu soo dari karo sida asxaabta aan la sheekaysto oo kaleete mar walba aan xiriirno okay mid saddexaad waxay tahay my contacts alla marka dadka ana xiriirka ila leh waa sheekaysan except marka laga reebo hebel oo kaleete macnaha sida calaameysatay marka laga reebo inta qof calaameysatay yaa intaas qof macnaha ma ku soo dari karaan group group bilowd ma ku soo dari karaan ilaa aad adiga oo ogolaato kadib dan aad leedahay oo ku haysmaa okay tii u dambeysay oo lixaad waxay noqonaysaa marka two step verification kan waa muhiim mobilka ama WhatsApp-ka wuxuu muhiim u yahay si macnaha qof kale uu ka isticmaalin hadii uu qof lambarkiisa xitaa macnaha oo mobilkiisa oo ka gasto oo lambarka gasto wuxuu sugaa baqshada sugaa macnaha mobilka laftaada adoo weeytid lafta ay ku soo diraa marka two step verification ay ku soo diraa code-kaas adoo gelin ma isticmaali kartid WhatsApp-ka adiga naftirkaaga oo mobilkaaga macnaha aad ka gelisay code-kaas la'aantiis ma geli kartid okay aku tuso marka waxaan marka ujeedaan two step verification oo ku dhufanaya kadib waxa ay soo baxay waxaana ay soo baxay enable marka enable ka dhayd halkaan waxa gelina marka lambar aan waxa gelina hadda lambar aan gelina marka ujeedaan marad ku celiyo la confirm your pin ka geliyay kadib email oo weydiiyay diirid waxa leedahay escape ka gudub oo kaleete aad leedahay email-kaaga ama gmail-kaaga mid aad gelinaysa kadib waxaan leedahay done ujeedaan marka baqshad ayaa ku soo dhacaysa baqshada ayaa gelinay isla markii wuxuu ku dhaca marka two step verification geli baqshad ahaan ku soo diraa laftaada hormuudka oo kugu samaysan WhatsApp-ka